wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay sheegayaan in bulshada ku dhaqan gobolkaasi ay soo dhaweeyeen shir dhawaantan lagu soo gabagabeeyay gobolka warbixintaas oo faahfaahsan waxa magaalada beledweyne nooga soo diray ciise cabdi ciise kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada qeybaheeda ayaa waxa lagu taageeray shirweyne dhawaan ka dhacay magaalada beledweyne oo soo qaban qaabiyay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif kulankani ayaa qodobadii looga hadlay waxa saxaafadu u akhriyay xasan kaafi oo kamid ahaa qaban qaabiyaasha kulankani shirkan maanta waxa qabsaday jifada iyo madaxweyne xawaale ujeedada shirkan loo qabtayna waa laba qodob koow waa taageerada shirweynihii beesha xawaale ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif uu ku baaqay ee laga soo qayb galay dhaqan galay in lagu taageero dhammaan go'aamadii 8 ah ee ka soo baxay qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye wada tashiga iyo ansixinta mideynta dhiigga iyo dhaqanka jifada iyo madaxweyne sidoo kale waxa ka hadlay nabadoon faarax cabdi waare waxa uu na sheegay inay taageersan yihiin shirweynihii dhawaan ka dhacay magaalada beledweyne oo soo qaban qaabiyay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif haddii markuu ugaasku intii odayaashii iyo intii aqoon-yahankii iyo xoogaagii qurbaha ka yimid oo arrintii u sheegay mas-uuliyad oo dadka soo daba dhigayaa jirtay oo warqada ku qoran oo yidhi nin walba ama nabadoon walba beeshiisa ha u sheego waxa maanta xawaada dhaqan ka dhigtay oo 8 qodoba ha gaarsiiyo muxuu ahay hana u sheego dardaarankaas ugaaska ayaa bixiyay ugu dambeyntii ayaa waxa ka hadlay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif wuxuuna ugu mahad celiyay bulshadii ka soo qayb gashay kulankani wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada ku nool gobolka hiiraan inay ka qayb qaataan nabadda waxayna maanta u tahay maalintii koobaad oo la fulinayo qodobadii ay bilow ka tahay runtii markii shirka la furayo waxa la sheegay إنه هو حلي فلنتي قلبادين سو go'aamiyay iyo dhaqanka iyo diinka ka dhaxay meeshii war madaxweyne waxa halkaan leeyahay u baray hogaanka uu ku soo aadayo talada beesha inuu yahay Faarax Cabdi Waare Ciise Cabdi Ciise Somside TV